Qisadan waa qiso dhab ah oo ka dhacday magaalada Muqdisho. Nin iyo xaaskiisa oo ku heshiiyey muxaadaradii shalay ee Sheekh Kinyaawi. Wuxuu yidhi qofka inoo soo warinaya qisadan waxay ahayd maalin Khamiis ah oo taariikhdu ahayd 10-ka bisha koowaad 2019, oo ah maalin ka hor waqtigii lagu ballansanaa muxaadaradii Cafi Walaalka ee ka dhacaysay magaalada Muqdisho. Goor barqa ah waxaa i soo wacday walaashay Faadumo, waxayna igu tiri, ma ogtahay walaal in muxaadaro uu qabanayo Sheekh Maxamed Ibraahim Kinyaawi inay ka dhici doonto magaalada Muqdisho, gaar ahaan kilomitir 4. Waxaan ku dhahay walaal, yaa kuu sheegay arrinkaas? Waxay igu tiri, waxaan ku arkay Facebook warqad dadka badankood ay dhex marayaan baraha bulshada. Waxay sheegaysaa warqadaasi inay dhici doonto maalinta Sabtida ah. Waxaan ku dhahay walaal, ma hubtaa arrinkaas? Waxay igu dhahday, koley sidaasaan ku arkay Facebook, xog dheeraad ahna kama hayo arrinkaas. Kadib waxaan ku dhahay walaal, waan arki doonnaa, balse uma malaynayo inay xaqiiqo tahay. Sida ay noqotaba, Sabtida ayaan arki doonnaa insha Allah. Macsalaama ayaan ku kala tagnay. Isla habeenkii Khamiista oo ay Jimco soo galayso ayaa waxaa i soo wacay saaxiibkay Abuubakar. Wuxuuna igu dhahay, saaxiib, ma maqashay muxaadarada berrito lagu qaban doono magaalada Muqdisho, wuuna qaban doono Sheekh Kinyaawi? Waxaan ku dhahay, horey ayaan u maqlay, balse waan rumaysan waayey. Koley adigana haddii aad maqashay waa wax jir oo macquul ah. Hadduu alla yiraa beri ayay ka dhici doontaa howlka sahal ee kilomitir 4, ayuu ii raacay hadalkiisa. Kadib waxaan ku dhahay, waan israacaynaa insha Allah. Waa inoo berrito ayaan ku kala tagnay. Wuxuu yidhi ninkii inoo warinaya qisadan, maalinkii Jimcaha anigoo jooga macadka waxaa i soo wacay xaaskayga oo uu khilaaf ba'an inoo dhexeeyey. Waxaan is dhahay kuley wax kheyr ah kuuma sheegi doonto. Kadib markaan ka qabtay taleefankii waxay igu tiri, assalaamu calaykum. Markaan ka qaaday salaantii, meeshaan ka filinaya hadal xun, waxay igu tiri, soo ma ogid in Sheekh Kinyaawi uu muxaadaro qaban rabo xamar gudaheed? Waxaan ku dhahay, waan ogahay, aniga oo aan hadalkeeda xiisaynaynin, waayo khilaaf daran ayaa naga dhexeeyey. Waxay igu tiri, waan aadi rabaa ogow. Waxaan ku dhahay, hadda macadka ayaan ku jiraa, markaan ka soo baxo ayaan kula soo hadli doonaa. Qadkana waan ku jaray. Xoogaa kadib macadkii ayaan ka soo baxay. Waxaan soo maray masjidka si aan ugu soo tugto salaadii Jimcaha. Markaan ka soo laabtay masjidka ayaa waxaa i soo wacay saaxiibkay Abuubakar. Wuxuuna igu dhahay, haye diyaar ma tahay? Haa, waan ahay ayaan ugu jawaabay. Kadib wuxuu igu dhahay, guriga iga soo mar, halkaas ayaan iska sii raaci doonaa insha Allah. Markaasaan ku dhahay, waayahay. Waxa aan soo socda waxaan soo gaaray gurigaygii. Intaan fadhiisanba waxaa ila hadashay xaaskayga, waxayna igu tiri, waan bixi rabaaye ogow. Kadib ayaan ku dhahay, anigaba waan socdaa, balse isma raacaynay ogow. Waxaad soo raacdaa walaashay Faadumo. Waayahay. Aan lagu qanacsaneen ayaan ku kala jeysanay. Waan isdiyaariyey. Kadib waxaan soo maray saaxiibkay Abuubakar gurigiisa, waxaana isku soo raacnay howlkii muxaadaro lagu qabanayay. Wax aan soo soconaba waxaan soo gaarnay howlkii iyada oo ay saacadu ahayd 9:20. howlka banaankiisa ay dhalinyaro buux dhaafiyeen oo xitaa aan meel laga galo lahayn, oo iridii xitaa waxaa taagnaa askar dadka ka celinaysay howlka. Kadib markuu buuxsamay waxaan halkaas joognaba waxaa la gaaray waqtigii salaada casir. Salaadii ayaan tukanay, welina nolooma ogolaan inaan galno howlka. Waxaa la gaaray 11 rubi dhiman. Waxaa inoo caddaatay inaysan macquul ahayn in xilligan wixii ka dambeeya aan la furi doonin howlka, oo ay xilligaas ku jireen ku dhowaad 4,000 oo qofood, Sheekh Kinyaawin uu ku jiro. Waxaa i soo wacday walaashay oo ay la socoto xaaskayga. Waxaan ku dhahay, walaal, waqtiga waa goor dambe, iska laabta oo guriga iska aada. Waayahay ayay igu jawaabtay. Kadib aniga iyo saaxiibkay waan iska soo baxnay oo waxaan soo aadnay gurigeena, annaga oo aad u niyad jabsan oo ka murugaysan waqtigii naga dhumay. Haddana aysan noo suuro gelin inaan xitaa maqalno muxaadarada. Aragtida shiiqa iska badaayay. Markaan gurigii ku soo laabtay oo aan nastay kadib, waxaa ila hadashay xaaskayga oo iyadana aad ugu riya jabsanayd inay ka mid noqon weysay dadkii farkutiriska ahaa ee ka qayb galay muxaadarada. Welibana iyada waxay i dheerayd, waxay aad u dhegaysan jirtay muxaadarooyinkiisa, aad ayayna ugu hami weyneyd aragtidiisa. Waxayna igu tiri, waa ciid iyo calool xumo inaan maanta la kulmi waayo Sheekh Kinyaawi oo ka muxaadaraynaya Muqdisho. Waxaan ku dhahay, aniga oo jaaniskaas ka faa'iidaysanayay, muxaadarada magaceeda waa Cafi Walaalka. maxaad walaalkaa cafisaa? Anigaad i xumaysay, welibana iga xanaaqsan tahay. Waxay igu tiri, waan ku cafiyey walaalkay, maanta wixii ka dambeeya kaama xanaajinayo, warkaagana ma diidayo insha Allah.
waxaan ku dhahay waan kaa ogolaaday. Sidaas ayaana ku heshiinay aniga iyo xaaskayga. Muxaadarada magaceed ayaan ku heshiinay Allah mahadiis. Bal ka waran haddaan ka qayb gali lahayn muxaadarada. Wuxuu ku soo gabagabeeyay walaalka inuu warinayay qisada. Wallaahi waa qiso dhab ah, mana ahan dheel ama mala awaal. Aad ayuuna u mahadsan yahay Sheekh Kenyaawi, waana u mahad celinayaa. Adigana walaal, haddii aad dhageystay fadlan waa iga codsi iga gaarsiiyey sheekha si ay ugu noqoto bishaaro iyo dhiirigelin. Allah xifdiye adduun iyo aakhiraba.